laakiin waxaan la yaabay dad macnaha waaweyn oo garanaya waxyaabaha qaar in ay yihiin waxyaabo aan social media la soo dhigin. magaciisu waa Dirisle waxa uu ka soo muuqday asigoo cabasho ballaaran ka ah youtuberada kale ah Lii Caato iyo weliba Ayuub Kaarlo. muuqaalkeennan ayaan saaxiibayaal ku eegi doonaa isagoona u geysanaya sida muuqaalka ka muuqanaysa bahdilaad walow isagu uu u malaynayo in ay arrinkan tahay cabasho uu ka muujinayo labadaani shakhsi aan soo sheegnay. muuqaalka laygaree warbixin xasaasiya ayaan saaxiibayaal muuqaalkeennan idinkula wadaagi doonaa ku mahadsanid. kulanti habboon saaxiibayaal meel kastoo aad dunida daafaheeda ka joogtaan ku soo dhowaada channelkeennan Ducaysana Media. warbixinteennan saaxiibayaal waxaan diiradda ku saari doonaa muuqaal uu soo geliyey barihiisa bulshada qaasadan aaladda YouTube-ka youtuberka lagu magacaabo Dirisle Cabdi oo uu kaga cabanayo shakhsiyaadka kale ah Ayuub Kaarlo iyo weliba Lii Caato iyaguna qudhooda ah youtubero. waxaana uu sheegayaa in lambarkiisa ay hawada ka sheegeen ama si live ah aaladda TikTok loo yaqaano ay ka dhex sheegeen. waxaana sidoo kale uu sheegay in dhammaan mobilkiisa qaasatan aaladiisa WhatsApp uu isagu isticmaalo ama lambarkiisa ay soo buux dhaafiyeen miseejyo aad u fara badan ama maaseejyo aad u fara badan isla mar ahaantaana uu kala garan la'yahay ehelkiisa iyo weliba dadka qaar ee la soo hadlaya. waxa uu sheegay inuu biin saartay dadka qaarkiisa ugu muhiimsan maadaama miseejyo kor u dhaafaya 800 ilaa iyo 900 oo miseej loo soo saaray isla mar ahaantaana loo soo diray. waxa uu sheegay kadib markii lambarkiisa hawada laga yeeriyey ilaa iyo haatan in mobilkiisu uu jaamgaraysan yahay. Ayuub Kaarlo iyo weliba Lii Caato ayaa iyagoo leefka TikTok ku jira waxay isku xujeysteen in Lii Caato uu waco Dirisle Cabdi sidaasina ay ku imaatay in Ayuub Kaarlo si toos ah oo hawada live 3,000 oo qof dad kor u dhaafaya ay daawanayeen uu Ayuub Kaarlo ka yeeriyo lambarka Dirisle Cabdi. Dirisle Cabdi ayaana arrintaasi xanaaq weyn ka muujiyey isagoona bartiisa baraha bulshada muuqaal uu soo geliyey uu ku bahdilay labadaani shakhsi ee lagu kala magacaabo Lii Caato iyo weliba Ayuub Kaarlo. ila milicso muuqaal kooban oo uu soo geliyey barihiisa bulshada youtuberkan lagu magacaabo Dirisle Cabdi oo uu kaga cabanayo shakhsiyaadka kale ah Lii Caato iyo weliba Ayuub Kaarlo. manaa lambarkayga caadi live ay 3,000 oo qof daawanayso laga dhex yeerinayaaba sidoo cashriyo oo kale. manaa meelaha aan laga ciyaarin weyn ee laga kaftamin lambarkayga in uu qof soo dhiga social media qalad baan u arkaa wuxuu doonaa ahaado ama qof ii dhow ha noqdo ama qof iga faa noqdo. manaa kuma farxin waxaas wax aan jeclaystay oon doonay maaha. sababta aan hadda uga hadlayo macnaha maalin hore uga hadlina waan idin yara taataabani. war markii la soo dhigay taleefanka social media waxaan arkay message soo dhacaya 200 300 400 ilaa 800 bis ka gaareen. muddooyinkan dambe waxaa ku soo badanaya baraha bulshada qaasatan aaladda nooca loo yaqaano TikTok su'aalo kala duwan iyadoona mararka qaar ay dhacdo in shakhsi caana lambarkiisa hawada laga yeeriyo sidaasina ay ku qortaan dhammaan dadweynaha daawanaya muuqaalka isla mar ahaantaana mobilkiisa sida fariimo loogu dirayo uu aad u jaamgaroobo. ku mahadsanid daawashada muuqaalkan fadlan haddii ay tahay markii kuugu horreysay oo aad soo booqato channelkeennan Ducaysana Media subscribe dheh oo rukumo gambaleelkana u furo. haddii aad naga daawanayso aaladda barteenna Facebooka like saar muuqaalka follow dheh oo ku soo biir page-keena lana wadaag saaxiibadaada. tan iyo kulanti dambe nabad diino.